صوتك ninkayga suuradiisa iyo waliba saxiixiisa noo baari oo koobiyan kara adduunyada ku nool ma jirto. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حبايب قلبي وانا حيحيسي ما يحيحيستان جبي جاي ما انت جوست كما جوست. الحمد لله على كل حال وعلى نعمة الله. وإذن سلاني أنا يوم كل شيء ديسي على رها برشا وناس. ديسي say hi. هاي. ما شاء الله. سلام كدب. ugu horeen waxaan rabaa inaan halkan ka cadeeyo fiidiyowga ay soo dhigtay inuusan jawaab u ahayn kii aniga aan soo dhigay, shaqana aysan isku lahayn oo aniga aan duubay habeen ka hor, balse waaga markuu ii bariyay aan go'aansaday calooshana ii hurtay inaan iska daayo markaan aniga is dhageystay. laakiin ileen doofaar ma daheersame ummadaasoo miirana ilaahay adduunka ku uumayo keenay. sababta igu kaliftay in aan soo deeyana isla afkeeda waa Mrs. Fake. balse jawaabta fiidiyowgii ka soo baxay hadda iga hooda waa kana. number 1, صوتك ninkayga suuradiisa iyo waliba saxiixiisa noo baari oo koobiyan kara adduunyada ku nool ma jirto. qofka codka aad ka soo duubtayna ma ku maqashiyaa codkiisa aad soo duubtay oo ninka codkayga aad ka dhigaysid aad ku cadeynaysid cadeen camal aad ula soo fadhiisatay may. laakiin because aniga ilmihi siyaad bara ma ahayn laakiin aniga shaaric laygama soo qaadin, guri akhlaaq iyo aadaab leh ayaan ka soo baxay. cod islaameed inaan public la soo fariistanay akhlaaqdeeda iima saamaxayso. number 2 maxay tiri kelmad aan ku hadlay iguma soo noqonayso. CAD da ma sha Allah ana hadda ku sheegayo isla kelmadii shalay aad ku hadashay markii aad soo saartay heestii waa bari, isla kelmadaas le maantana cod aad ka soo sameeysaa tiri ilaa igu soo duubo oo ahayd ayada ilaan xaq u lahayd hadal kale ma weyse. wixii ka horeeyay dhan aaway intaad isdhaafsateen aaway WhatsApp-ka aaway maxaa soo dhigi weyse taariikhdii aaway intee geysay way ku shaqeyn weyse miyaa ma shaqeeyaysaa codka baryahan oo dhan aad la wareegaysay oo diriska oo dhan aad u tusiisay u maqashiinaysay inay ku saxiixaan in lagu dhaho codkan waa asiga iima aha. ileen adaa afkaada ka cadeystay inaad diriska dhan maqashiisay oo aad la tashatay ayna kugu dhaheen soo day dadkana tusi ha kaa hartay tuuganimo. laakiin dad adiga kaa aqli badan lama tashanin. I'm very sorry. way ku soo lugooyeen tan way kaa qaloocatay mid soconaysa ma aha. codka ninkayga haddaad u bogto inaad maqasho lagama yaabo ma maqlaysid. iska daa adiga xataa ragga qaarkooda uusan la hadlaynin. naag waaba naage naag anaa ugu filan la hadalkeeda sumcadiisa iyo sharaftiisa ka weyn. ilaa iyo maalintii kow aad tiri waxaan jeclaan lahay ha soo fadhiisto. no way lagama yaabo sharaftiisa ka weyn taas. waana istaqaanaa waan ku naqaanaa waana lagu wada yaqaanaa. haddii ay jirto in aad codkaad aad haysatid maalinaan ogahay oo aad karkaraysay ee lagu wareysanayay oo ilaa cay aan ku gaarsiiyay inaad caytanto kontarool la'aan adoo ah aad is ogeen iska warhaynin naftaada aad la soo shirtagi lahayd. markaas aad la soo shirtagi lahayd amaba afkaaga soo dhufan lahayd. afkii shalay aad ku tiri waan kaaga hormaray halaal caleeg maxaa ii dhihi weysay ilaan ani adiga waa noo la wada dhiibay heeste isla afkaas ma maanta ku dhahay waa la ii fasaxay. ما شاء الله maxaan ku dhahaa Mrs. Fake Mrs. Qayaanoli tan kale Soomaali Maxamedey. shalay markaan fiidiyowga soo dhigay qaar badan baa waxay ii soo qoreen sidee naag ninkaaga kaaga furi kartaa reer kaaga dumin kartaa. horta qof doqon nacas ah ma jirto ama in la soo hor istaaga la dhigi karo orod ninkaaga iska soo fur. laakiin shaydaanka waa siyaasado badan yahay
taadan ba ku yeelaybo ileen adaa afkaada ka yiri maraan isdhahay adiga iyo gabarta ama isku kiindiri rabaa okay saasaad ba u fahantay ileen afkaada ka cadeysatay maxaa isku soo kalifi weysay ileen 5 daqiiqaan isku jirnaa ani adiga 24 hours na telefoonaan ku wada hadalnaa wanaagna dad ka dhaxeeya waa nahay muxuu aqligaaga u keeni waayay inaad ii sheegto oo aad luuq u gashatay haddaadan dulmilay ahayn oo aadan raadinaynin nin iyo naagtiisa inaad ka dhex shaqayso waana kuu fasixi kariyaa ileen baawar u leeyahay waa nin rag marka doqonay mid aad ilowday nin iyo naagtiisa inaan la dhexgelin ama aysan waxba kala qarsanin aqliga ha shaqeeyo ee wax ila arka laakiin hadda waa fashilantay isku dirnimadaada iyo kala geeska reeraha inaad macalimadiisa tahayne dadka adaa tusiyay una cadeeyay xisaabta taas ku dar abaa jaanis gaadoy hal kelmad hadday ku soo gaarto saa gurigaada ugu cishatid ama calooshaada ugu cishatid ma taqaanid waa is ognahay hadal adiga mar hore ku soo gaarayna intaan ma maqnaadeen ama anigaba igama maqnaadeen ilaan fursadaad ba heshaybo okay wayba dhacdaybo kaba soo tag micnaha heestoo socoto adiga iyo gabadha kala aqaadaysin farax banaankay ka arki lahayd miya sharafna waa idinka dhaxaysaa abwaankaa kuu fasaxay inaad isoo kalifta ani iima sheegi lahayn miya maasha allah gabar iska dheh wajigaaga runta ah banaanka keentay marka maadaama aad la aamustay codkii oo asaa ii fasaxay aad tiray shaqo dheerna aa usoo martay in aad kala geysanin iyo naagtiisa oo misana haddana afkaaga aa ka cadeysatay soomaali maxamedey hadda ma ogaateen shaydaan inuu siyaasado badan yahay oo inuu kusoo hor istaago ku dheheenin orod reerkaaga dume adna aad ku dheheenin okay kaala waryaay fur balse ay jirto saqajaanimo wareegta ah tanoo kala maanta dhacday bal hadda maxay codkaas ula soo shir tagtay heestii wayba soo qaadaybo waxay ahaatabo maxaad ula soo shir tagtay codkaas hal leysku dhaco soo ma hal leysku qabsada maaho ha lagu kala taga bam صح I'm very sorry حبيبتي قبتها فيلنكاغا وكا هلاوده waxyaabo badan jiro sida shaydaannimada sixirka iyo safkii badnaa ee seeftii sayidina cali loogu talagalay umadaasoo kale aad buuxdo oo Mrs Kobe Mrs Fake number 1 ay ka tahay maxay tiri muusigada gurigeyga lagu tumay anigaana lacag kala baxay adiga camal aan ahayn lacagaan baxsaday iyo waxbaan ku siiyay iyo cuntaan ku siiyay iyo kanaan ku qabtay iyo carabkaaga hadal kale ma yaqaan miya subhanallah okay muusiga aad tiri gurigeyga lagu tumay laguma tumin muusiga gurigaaga ee gurigaaga daraamka muusiga lagu dhisay laxankana musicianka ugu gudbinay toonkana anaa codkayga ku dhiibay fanaaniin badanna wayna la joogeen oo markhaati ay yihiin laakiin I don't want inaan isticmaalo magacooda ilaahna waa ogyahay musicianka safar oo ahaa oo degdeg ah muusiga waa siinay wuu baxay wuxuu ku soo dhameystiray wadankiisa lacagtana waxaan ugu diray xabaalada Taaj warqada cadeentana rasiidkeedana waa tana anoo informaasigiisa qarinay musicianka insha Allah kan lacagta taasan ka dhahay muusigana wuxuu soo diray anoo jooga gurigeyga maalmo maxaa tiri markuu ii soo diray oo isoo wacay oo ii yiri muusigada ii soo dir
فنانيني صومالي محمد فنانينا وضعنا هيا واللي قام جرى أبوان انت هيس كسية موزك ويدينا مسوا حاجرتو مركات صوت دوبت العلا كبس سوقات هيستي سيدي أدوبت إريادي مكو سحيهن إي صادر بالآن دقيستي مثل موزك إي صادر محوكو قبنا موزك إلا هو أبوان كي تاسوي كهلاوده تاسوا كاديدي qof walbo aqli lehna kama qaadanayo muusiga gurigaaga ana keenay maxaana u keenay maadaama aan wada qaadayna ani adiga heesta in aniga aan ku duubo codkii tijaabada ama testiga baroobada ama xafidaada sida adiga aad u baxsatay markaan duubo oo aad u dhageysatid oo aniga aad iga xafidid si hadhow duubista aadan ugu dhibtoone sida mar walba dhici jirtay weligaaba hees banaadire oo aniga aan duubin oo aad dhageysanin oo aad soo duubtay intaan wada joogno ma jirto sax taas haddii aad kasoo falcelisid oo hadal aad ka keentidna caddeemaheedan kuu hayaa waayo before ay farax kuu imaanin banaadiriga inaad jabaan camal u heysi jirtay lahjadana aad ku hee waa ogta dadkana way og yihiin markay farax kuu timidne dadkoo dhan way og yihiin sharafta u heysiisay marka muusig kugu soo gaartay inaan aniga kuu duubo ixsaan kuugu sameeyo si aad heesta u xafido ma hadda dhehe anaa la ii soo diray muusishinka asna wuu isoo weydiistay waa kaa qaloocatay taas qof walbo aqli lehne kaama dhageysanayo marka dhegtaada iyo afkaaga ha ismaqlaan Mrs. Kobe marka muusiga xaaladeeda waa saas qoftaas anaa u geeyo ayada abwaanka uma dirin teeda kale adiga ma lihid miya camal aan ahayn anaa kuu sameeyay ana أعوذ بالله فمي من كلمة أنا إلهان كما قال كلمة أنا إلهي وسقناتي مدة كله محاي تري أنا جواكو أبابية ما شاء الله أبابي سوي ضدك إيجا قدوي محاي وصو أبابي سوي ما إنا نهاي ويجا كده جنا ضبط حيرنا عني كنا مسوا حاي وصو أبابي سوي إنا نرجع شفك صارنو إلا إيش يوقف كسو قيليان واللي بقى أنا جو حاسس إيه مسوا حد يوصو أبابي سوي إنا مالين بفنان كده جنادو أما درس كأو إجنا بتجلي واي ما يشرفني إنا كابرتو شرف إيه معها إيه منا قلمه كامنا قادنايو واي هو يا هو رئيسو أواب سطي وأغلاق ذا إيسو برتي I am not like you ساس ولا صار محاتري هيستا ضدك السجد جيسان إنا إذن كصوف الصحدين دعوة إذن كصور رابطي عدين تهستا إنا أنا جكود ديستي شلينا أن ناجني مذي إذا كاغا صاري قفت شلي كود دعويسي إيه شيء يوتيوب كنيكي جوا أنيجا إلا بعض جنال بدعويسي قفت كسر عليسي كو أقلاتينه بس أنيجا رالك ما يهنو نيكي جا إيجا دالبضي كان معلوم والبعض ميلها أفديسيد إيه أتكعيسيد أكو فصحي النوان أقلاضي دad ismaqlaan nahay manihi familada qaar ee aan isdhageysanin ee dulmiga isku horkaco ee aan iscishanin waxaan nahay dad sharaf leh saxiix shalay anaa kaa saaray kuguna dacweeyay inaan kugu dacweeyo baawarkaaga saarana waxaa daliil u ah warqadaha lawyerka halkaas ka daabo lawyer xataan ku qabsaday waana kaa saaray waliba waxaan diyaar u ahaa inaan ilaa iyo maxkamad kula tago balse yaa iga qabtay
yaa igu yiri iska daa heesta ninkii sameeyay waa nool yahay nafna waa ku jirtaa xabiibti maskaxdii aan ku sameeyna wali waa igu jirtaa sidaan waa bari u sameeyay kun waa bari kalena waan u sameyn karaa waxaani waa hees ha ka sii daba qaadanin please xayaati halkaas kaga har ma xaajigayga igu yiri intaas ilaaha ii deystay allana haas ku keen dhaafe il cadowna allah naga haaye xabiibi I'm very sorry laakiin qofka aad iga celisay adiga ma taqaanid aqoonna uma lihid bini'aadinimada iyo daacadda weli kugu dambeyso laakiin qoftaan hal luqad keliyay taqaanaa waana luqadda ayada ay ku hadasho isla luqaddaas haddaad kula hadli weysane ama wax ugu jawaabi weysay wax ma fahmayso no way للأسف ما أنت ما حد كجوابتي ما حاس لجوجو جوابي حبيبي إن لو ده باوركيج عن كسر ديست يا قرال حن ماشى لو صادقة اسمه بقى أوجا أقل كي جوجلي سامق للجري تاس نوح عن كذا هاي تاس ما حكى لو تري قول لقى قدام بيا قول ما أها قوشاس ناك باشلي كجارتي ما أنتنا ninkeeda xaajigeeda gacanta ku geliyay asoo naagtiisa cishanayo ilaa waa nin rage oo naagtiisa cishan karo marka ha ku faanin midaad adiga gacantaada ku soo dhacsanin la soo shirtag waxa adiga baawarkaada ku keensatay tan anaa kuu ogolaaday anaa hee kuu ogolaaday heesta waa barina qofka aad kala oroday oo way la soo qaadaya isdhihiisay gariirisoy ma ku maqashiyaa codkeeda qofka aad ka gariiraysay say u heestay kollay kuuma dhaafayso aniga markuu ninkayga i qabsaday anna waxaan ku iri heesta looma dhaafayo waa la soo qaadaa xabiibti heestaada adaa iskale waa qaadan kartaa hoo yiri laakiin tan hadda ka har ninkayga igu dhahay ma ku maqashiyaa qoftii aad karoortay aqwaan say u soo heesti ma ku tusaan ila dhagayso codkan وبري والد وايه حبيبتي الله لا يحرمني منك قرير السوي ما شاء الله ما شاء الله ديسي قابيخ مركز صعيس كبح لاعبة داسان وطانيقا تاسو ماتي لغا قريري مدافع سوا سوقادي اللي كبرنها قطنا تاهيستي إساقا عيش markuu xaajiga ila hadlayne waxaan badib isku dhahaybo bal ha ka saarin labadaba hal isla arkeen nin walba taagtiisa ee qodaxee meel libaax soo galay lo ma joogay gariiri sooya goobta soo gashay waa gilgilay camalno Mrs. Kobe waxay istiri Snapchat-ka 24 kadib wuu ka baxaa hadalkii farax soo dhahday ee YouTube-ka geesay ku kala qaraxsa camal كوجستي عملها مسس دراما كلمة أهرد لأنا كجرد ناكتي كسويرتي وأنيقا ناكتي 24 hours سديد ساعة بينما سقال ساعة بينما 8 ساعة بينما لبي 8 ساعة صباح نمو سيجي سمعنا أفكي كونفرك سناب إفري دقيقة دافتو كسو جلينيسي أو أتكاد ليسي واكفتن tii kaa soomisay markay ku tirayna kelmaday kugu tiray ma hadda la soo shirtagay tii kaa soomisay ilaa 8 saac duhurnimo inaadan soo gelin oo hadalka aad isku cadeyninna waa tanaawil nafay ku jirtaa waa harsan weysi waa hurdi weysi sax ana hurda la aan ku guriday snadii
waxaan snaabka kaa soo dhahayne youtube hala soo shirtagin mrs copy iga bareejay ma hilmaamtee tii koobiyeenaysa iga bareejay ilaa haddaa koobigayga tahay markaasaa dhehee dabacsan fikradayda inaad isticmaali jirtay hadalkayga isticmaali jirtay kelmad qurux badan xataa hadday iga soo dhacdo xataa iima quurtidno waa lasoo orday dig youtube waa la imaanay miya youtube leeyaa ka shaqaysata kaas hore u qaadatay mogta ya week ka hor 2 week ka hor haddii soo raadisid waa soo heli waa ka halawda maxaa kaloo tiri goomaarka aniga baashaaloo ii yahay saa adiga u fahantay ma aha ma waxaad ii quuri weysay hal libin kaliya oo ah inaad idhahdo waa kugu aadi waayo goomaarna kuguma gaariye iga qalay ma awoodi weysay kelmadaas inaa idhahdid tabartaada kuu deerisay waa awoodi weysay markaasaa meesha waxaad lasoo fadhiisanaya weji fake ah mrs fake naa wejigaaga dhabta ah anaa dadka tusaayo mrs fake libinta dadka waa loo quuraaye xaasidnimada iska daayay iyo quur looma baahna kalsooni daro markaad kaamirada soo hor fadhiisanayso sida inaad filin hollywood ku duubayso kale ama xaflad loo socdo kale ilaan adduunyadaad gadaal ka aragtay oo kugu cusub tahay waaba ku diidiinsan tahay waa la yaaban tahay ba sax jijimo waaweyn iyo faransaabi iyo boolbara iyo foundation oo gables kusoo siiyo ama beesha balambalis oo indhaha laga soo taagto taas loogama baahna meeshaan ee waxaa looga baahan yahay weji daacad ah iyo runta oo rabbi kugu jecel yahay inaad ku hadashid kalsooni yeelo adoo isku kalsoon aad jaraynaynin oo beenna aad sheegaynin ilaa qabrigaa ku sugaayo soo fadhiisa meesha wejigaaga dhabta ahna dadka tusi mrs fake ma tusi kartid hay dhib male laakiin anaa tusaayo anaa dadka ku baraayo don't worry xabiibti kolley Soomaali Maxamed 90% wejiga labaad ee ku duugan way og yihiin 10ka aan ka reebayna lama yaabayo sababtoo ah makase aan bashalay waa kugu sirnaa ilaan sixiraad isticmaashay ayagana maanta sidii ay kugu siran yihiin I hope maalin wajigaaga dambe arki doonaan 10ka harayna waa sugeena inay 100ka noo buuxiyaan mana dheera ilaan beent waa lagu gaaban tahay war iyo dhamaantiisa Soomaali Maxamed waxaan u maleynaa hadda micnahayga inuu idin dhacay jawaabahaygana si fiican aad u fahanteen shaydaannimada dadka ninka iyo naagta loo kala geeyay reeraha faraha loo gashtane inaa idin cadeeyay tan oo kale oo codka beenta loola soo shirtagay hal la isku dhacay hal lagu kala taga camal hadda waa ogaateen doqon inaysan jirin oo la dheheen ninka iska soo furahaya dhaheeso balse shaydaannimo kale ay jirto iyo sixir iyo isha bini'aadanka ilaahan ka magan galnay ilaahay aan ka magan galnay aniga iyo inta muslim umada nabi maxamed ilaahay untay Allah subhanahu wa ta'ala waxaan ka baryeynaa reeraheena inay faasuqadaas oo kale nooga badbaadiyo umadaas oo kale noocaas oo kale mrs Kobe oo kale mrs Barejo oo kale mrs afka dadka ka gaadooy oo kale ya waxbaan haayay tiri intaas ka horaan heystay waa la aamusnay ani adiga waas naqaanaa dadka ku yaqaanana way ku yaqaanaan adoo kalmad haysan karin adoo ficilkaaga dheer yahay ilaa shalay sharaftan kaaga soo tagaya intaanoo ficil iiga daba keentay maxaad ka rabtaa naag shalay aad baratay oo asaagaaga ah naatii adiga aad dhashay baad la ficiltamaysay taasna waa tahay adiga hooyadaasna adiga waa mogta I don't know ilaahay wuxuu hooyo kaaga dhiga asaa og subxaanahu wa tacaala kuma dambaawaay laakiin uma qalantid ilmahana ma raba inaan afka la galo mana laga yaabo waayo dhalaqaba dhalama jibiyo amba gabaraan qaba ahaan dhalay horaana kuugu sheegay haddaad rabto farax inay kaa aamustane horaan kuugu sheegay
haddaad rabta inay faraha kaala baxdane horaan kuugu sheegay carabkaaga inay kaaga xiran tahay oo subxaana wa tacaala nafta i siiyey dartiisa aan kuu siiyey fursadaas in aad adiga iga dalbatay inaan kaa qaleeyo aniga waa la ii cishan karaa mar walbo waa la ii cishan karaa akhlaaqdaas waa leeyahay alxamdulilah laakiin goormee waay laakiin horaan kuugu sheegay carabkaaga uu kaaga xiran yahay ee naag haddaad tahay boota igama aha wallaahi aan ku dhaartay oo billaahi aan ku dhaartay oo tallaahi aan ku dhaartay saddexda magac ilaahan ku dhaartay thumma wallaahi haddaad afkaaga dambo ninkayga aada la soo gasho wixii dhaco aniga ma keenin adaa isku keenay ogow heestana baawarkan shalay kaaga bixiyay ilaa iyo hadda waan heestaa waan kaaga saari karaa laakiin my love amarkiisaa jiro ilaan waa nin rag oo naagtiisa cishan karo naagtiisane waa naag sharaf leh marwad raaliya ah oo ninkeeda dhagaysato amarkiisana qaadato waa fahmi kartaa waxaan ka wadano warka guntiisa iyo gabagabadiisa Soomaali Maxamed waxaa idin leeyahay hadduusan hadal kale iga daba imaanin inta ay jawaabta iga eg tahay hadduu iga daba yimaadana ballanteena hadal ma aha diba ka ogaa doontaan ballanteena waxay tahay balse iyada way og tahay Mrs. Kobe. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.